مهمة وكان لما ديا ملة طريقة مهمة وكان لما ديا سكون إلهي وربي أبوتي أمت مجن سداسي كميرنا يا كميرنا يا طريقة مهمة وكان لما ديا ملة طريقة مهمة وكان لما ديا سكون إلهي مرقي أودي أمت مجن سداسي كميرنا يا كميرنا يا سيال ممنو مرقي همين امان كدل شو مالي سنغا مشاري مشار دامبا مورال ياباني إيمان شو سوغونغا لنا ميلتري إيمان جاي سوغونغا لنا سيال ممنو مرقي همين امان كدل شو مالي سنغا مشاري مشار نامبا مورال ياباني إيمان شو سوغونغا لنا ميلتري إيمان جاي سوغونغا لنا كمامولو أرنادا يهور مارك ديرسيو مسؤول داعتين نقدو داعتين نقدو ميكو عاسني أرونتي ونبرني إني ملكالي كيني من التريقة وجنو دكي كمامولو أرنادا يهور مارك ديرسيو مسؤول داعتين نقدو داعتين نقدو كاي ألانكاي مبايلا يايو أمركي ما ديداي نمديدايو بعد السلام مركبو رئيسو عن ربعينا محمد يايو دفعات اللحاد عيد مدى taraawiishta koonfur galbeed ee maanta tababarka loo soo xiray gabagabadii tababarkii muddadii 3 bilood iyo waxa la jira ahayd ay qaateen waxaan leeyahay hambalyo kuwii dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladooda anfaca Allaha ka dhigo kuwii tababarkii la soo siiyey waajibaadkiisa sidii uu ahaa u qaatan Allaha ka dhigo waxaa la ka rajaynayaa dadka reer koonfur galbeed ay ka sugayaan waajibaadkii iyo tababarkii la siiyey inaad shacabkana si fiican ula dhaqantaan cadowgana aad gacan bira ku qabataan shacabka reer koonfur galbeedna si naxariis leh oo mas'uuliyad ku jirto aad ula dhaqantaan iyo la ka rajaynayaa oo la ka sugayaa intaas kadib waxaan rabaa halkaan inaan tacsi tiiraanyo leh uga diro shacabkii Soomaaliyeed
labadii maalin iyo labadii habeen oo soo dhaafay hotel xayaat dadkii argagixisadii arxan la'aanta ahaa ay weerarka naxariis darrada ah ay ku qaadeen maalintii jimcada ahayd ayagoo cibaadaysanayo jimcaysanayo nasanaayo ay si arxan darro ah u galeen dadkaas ayaga ah ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo kuwii arxan lawaayaalka ahaa ee dhibaatadaas gaarsiiyeyna in waajibaadkooda la marsiiyo meel walboo Soomaaliya joogtana dhibaatadaasaa taallo marka in isku mid laga noqdo loona soo wada jeesto sidii shacabka Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa marka dadkaas waxaan leeyahay Allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo inta dhimatana Allah u naxariisto samir iimaan Allah naga siiyo intaas kadib runtii maanta munaasabadan aan inta u joogno waa munaasabad muhiim ah dadka Soomaaliyeed oo dhanna muhiim u ah gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeedna muhiim u ah ciidamada qalabka sidana muhiim u ah dadka markii uu bini'aadan uu ku soo biiro farxaday u tahay reerka markuu wiil u dhasho farxaday u tahay markay ilmo kale ku soo biiraan farxaday u tahay maanta waxay farxad u tahay ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed maadaama ay ku soo biireen ciidan walaalahooda ah oo garabkooda ah oo dufcaddii lixaad ee ciidamada Koonfur Galbeed ah oo ka qayb noqon doono howlgallada iyo nabadeynta iyo la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta dowladnimada marka ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed mar labaad hambaliyo intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada ATMIS sector 3 oo mas'uuliyaddan qayb weyn ku lahaa tababarkan qiimaha badanna waqti badan geliyey ilaa haddana na garab taagan aanan uga mahad celinayno dowlad dhiska iyo tababarka ciidamada iyo sugista amnigaba qayb lixaad leh ku lahaa aad iyo aad ay u mahadsan yihiin macallimiintii tababarkan fulisay iyo saraakiishii si gooni ah taliyihii ATMIS ee sector 3 hadda la bedelay runtii sharafay noo aan lahayd maanta inuu goobjoog ahaado Generaal Zodo oo arrintan ilaa iyo 4 dufcadood ninkii 3 dufcadood dufcaddan 3 ku tahay ninkii tababarka ka bixiyey uu ahaa oo maanta ay ku ekayd waqtigiisii uu baxay meel walba uu joogaba waa mahadsan yahay wixii aad qabatayna waa ku mahadsan tahay wixii kaloo dhimanna taliyaha cusub yaa dhammaystiri doono marka ciidamadan iyo cid kastoo tababartay iyo cid kastoo gacan ka geysatay iyo cid kasta oo moralkooda qayb ka ahayd intaba aad iyo aad ay u mahadsan yihiin intaas kadib ciidanka la tababaray waxaan rabaa 3 dardaaran inaan inta uga tago midka ugu horeeyo waxaa ogaanaysaan ciidamada la tababaray waxaad tihiin ciidan dowladeed waxaad tihiin ciidankii dowladda Koonfur Galbeed waxaad tihiin dad waqti la soo geliyey tababar la geliyey dhaqaale la geliyey niyad la geliyey rajo badanna laga leeyahay ninka ciidanka ah waxa ugu muhiimsan oo laga rabo waxaa weeye waa inuu horta uu leeyahay wadaniyad haddaysan wadaniyad jirin qofka ciidan ma noqon karo waxa ugu horeeya oo uu aaminsan yahay waa inay noqotaa wadaniyadda waa inay noqotaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu aaminsan yahay uusan noqonin nin calooshiis u shaqaysta ah uusan noqonin nin qabiil u shaqeeyo uusan noqonin nin dana gaara ka shaqeeyo uusan noqonin nin qof gooni ah u shaqeeyo inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo dowladdiisa u shaqeeyo uuna difaaco badbaadiyo waa qodobka ugu horeeya oo laga rabo qodobka labaad oo ku xigo askariga waajibaadkiisa uu leeyahay waa dishibiliin
hadduusan askariga dishibiliin lahayn askari ma noqdo waxaa laynka rabo waxaa waaye dishibiliin kala dambayn jaraakiyaddii ciidanka iyo kala amar qaadashadii inaad ilaalisaan aad maxay ahayd dhowrtaan la is ixtiraamo askari kasta askariga la joogo uu ixtiraamo wada shaqayn iyo dishibiliinna laynka helo qodobka saddexaad oo ugu dambeeyo sida aan caadada ahayd oo aan ognahoon la soconno ciidamada waxa dhibaateeyo oo baabi'iyo oo burburiyo laba shay waa midka ugu horeeya waa wax la yidhaaha balwad askariga suu nadiif u yahay u tababartay u fiican yahay maalinta ugu horreysa mishaarka ugu horreeya uu qaato shaqada ugu horreysa u qabanayo waxaa waaye balwaduu bilaabayaa jaaduu cunayaa sigaaruu ku darayaa wixii kaloo kasii daran uu sii marayaa qofkaas noloshii waa ka dhacay waana khayru mas-uul wax mas-uuliyad uu qaadi karana ma jirto wax damboo lagu aamini karana male waxaan ka dardaarmaynaa ciidamadan freeshka ah oo dhallinyarada ah oo mooralka leh oo rajada badan laga leeyahay inaysan isugu dhowaanin wax la yidhaaha balwad si mustaqbalkooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba ay u difaacaan haddii intaas ay ka badbaadaan kalsooni badan yaa lagu qabaa waana lagu kalsoon yahay waana la aaminsan yahay inay waajibaadkooda guranayaan laakiin haddii maalinta ugu horreysa mishaarka ay qeetaan ay bilaabaan kii saaxiibkiisa uu yidhaaha inta jaada leere rooba la-am wal marqaame sakariyada la kadaree walaaga toosaan sa ilbaxnimada saasu ooba leere dhammaad askarna miyihiidii dishibiliinna malihiidii mustaqbalna malihiidii dhimati mar ad hunduraasa iyo mad aamaasa leeyo lamaadaasaan shalku haas lan lamaadaas nagadiina dalna ma difaaco dadna ma hayo dowladna walma taro rajada lasiinku leeyey waliba ahaa inay muuqato dhabnagatoo lasiinku fadee maalamahaasi mar saddexaad siinma baryeeye wali ilaahay siinku baryay inay sinagataan xaani dalsho iyo dadsho iyo diintiyooba difaaca ogdiin dalka maanta dhibaatada ku jarta meel kasta oo soomaaliya roogdo iyo dhibaatadaas taala gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed dhibaatada iyo qabaan ogdiin marsiinku warrabo sii baan dhalateen roogdeen beled indareerow male tuulo lindareero kor male beled kasta lama cunugaa roogdo oo shabaab isiin baa ku kooyteen baadiyada meel isin roogdeen haani lamaada cunugu oo ree baadiyaha ay roogeen yaa la faday meelo inka seetaan oo dadka walaaladiina xoreytaan culayska ku qaadaan nabad laka noolaado beeroo la tacba iskoolka la dhikada lan walba nabadiis iyo sharaf iyo karaamo ka noolaada gumaysiga shabaabkana laku bax eedi mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu